ninka harka u ah sirhayaha ugu weyn maskaxda dejisa siyaasadda arrimaha dibadda Turkiga iyo gacanta midig ee madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waa naaneeso si joogto ah loola xiriiriyo shakhsiyadda ugu saameynta badan dawladda Turkiga tan iyo sanadkii 2010 ninka Israa'iil u aragto mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu khatarta badan bariga dhexe ayaa ka soo tallaabay safafka akadeemiyadda ciidannimada isagoo u gudbay fagaarayaasha diblomaasiyadda caalamka qolalka qarsoon ee sirdoonka iyo miisaska wadaxaajoodka isagoo door weyn ku yeeshay dejinta siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkiisa waa safar xirfadeed oo si gaar ah loo dhisay magaciisu wuxuu si toos ah ugu lamaanan yahay faylasha amni iyo siyaasadeed ee ugu xasaasisan Turkiga sidaas darteed la yaab ma aha in Erdogan qudhiisu ku tilmaamo inuu yahay sirhayihiisa damaanadda mustaqbalka dalkiisa iyo shakhsigii door weyn ka qaatay fashilinta afgambigii 2016 ninkaas aan ka hadlayno waa Hakan Fidan waa kuma ninkaas laqabyada badan maxay yihiin awoodihiisa dahsoon aragtiyaha laga haysto iyo sida uu ku soo dhismay su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan ku lafaguraynaa tabinteennan Tifaftir Media ee soo dhawaada wuxuu sanadkii 1968 ku dhashay kuna barbaaray qalbiga caasimadda Turkiga ee Ankara halka go'aamada waaweyn laga gaaro wuxuu xilli hore ku biiray akadeemiyadda militariga isagoo ka qalin jabiyay 1986 kadibna waxa uu ku biiray cutubka gurmadka degdega ah ee gaashaanbuurta NATO taas oo siisay khibrad militari oo dhanka howlgalka ah si kastaba ha ahaatee Fidan kuma ekaan xirfadda militari oo kaliya wuxuu ahaa nin xiiseeya aqoonta iyo siyaasadda sidaas darteedna wuxuu u safray Mareykanka halkaas oo uu ka bartay culumta siyaasadda iyo maamulka jaamacadda Maryland markii uu dib ugu soo laabtay Turkiga wuxuu shahaadada masterka iyo tan doctorate-ka PhD ka qaatay jaamacadda Bilkent cilmi baaristiisa doctorate-ka wuxuu diiradda ku saaray doorka sirdoonka ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda taas oo ahayd calaamad hore oo muujinaysa xiisihiisa qotada dheer ee dunida sirdoonka iyo siyaasadda caalamiga ah kadib markii uu iska casilay militariga Fidan wuxuu qabtay xilal kala duwan oo ugu muhiimsanayd xubinimada guddiga agaasinka hay'adda caalamiga ah ee tamarta nuclear-ka IAEA intaas kadib ayuu si aad ugu dhawaaday xafiiska looga arrimiyo Ankara markaas oo loo magacaabay xil ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha oo uu xilligaas joogay Rajab Tayyip Erdogan khibradahaas oo dhan waxay ahaayeen gogol xaarka tallaabada ugu muhiimsan ee sanadkii 2010 markaas oo uu Erdogan raadinayay gacantiisa midig si uu ugu dhiibo hoggaanka sirdoonka wuxuu doortay Hakan Fidan kaas oo noqday madaxii ugu da'da yaraa ee hay'adda sirdoonka qaranka Turkiga ee MIT ma ahayn oo kaliya agaasime hay'ad amni balse wuxuu ahaa nin dejiya siyaasado isla markaana si toos ah u fuliya wuxuu hogaamiyay wadaxaajoodadii lala galay xisbiga shaqaalaha Kurdiyiinta ee PKK ee ka dhacay Oslo wuxuu maamulay faylasha Suuriya iyo la macaamilka kooxaha Kurdiyiinta wuxuuna door muhiim ah ka qaatay ballaarinta saameynta Turkiga ee Liibiya isagoo taageeray dawladdii midnimada qaran kana hortagay hor u socodkii General Khalifa Haftar ee galbeedka waddanka sidoo kale wuxuu ka mid ahaa maskaxdii ka dambeysay taageerada Turkiga ee Azerbaijan intii lagu guda jiray dagaalkii ay kula jirtay Armenia iyo la wareegidda gobolka Karabakh Fidan kama uusan seexan fursad kasta oo kor loogu qaadi karo saameynta Turkiga ama lagu badbaadin karo xulafadiisa tusaale ahaan kiiska dilkii Jamal Khashoggi ee 2018 Ankara waxay faafisay cajalado codad ah oo gilgilay adduunka isla markaana cadaadis weyn saaray Sacuudi Carabiya dalkaas oo hogaamiyay godoomintii Qatar sanad ka hor markaas loo geystay Qatar taas oo xulafo dawla ah Turkiga haddii aan u soo weecanno gudaha iyo guulihiisii la yaabka lahaa maalintii afgambigii dhicisoobay ee 2016 hay'adda sirdoonka ee uu hogaaminayay Fidan waxay door hormuuda ka ciyaartay la socodka dhaqdhaqaaqyada aan caadiga ahayn ee ka dhex socday ciidanka saacado ka hor inta aan la bilaabin isku dayga inqilaabka xog hordhac ah ayaa si toos ah loo gaarsiiyay taliyaha guud ee ciidanka Hulusi Akar kaas oo bixiyay amar degdeg ah amarkaas ayaa lagu xadiday dhaqdhaqaaqa diyaaradaha iyo helikobtarada militariga si looga hortago ama loo gaabiyo qorshaha afgambiga markii fulinta afgambigii bilaabatay Hakan Fidan waxa uu ku sugnaa xarunta sirdoonka ee Ankara
wuxuuna diiday inuu ka baxo inkastoo dhismaha si toos loogu duqeeyay diyaaradaha F-16 ay qabsadeen curiyaasha afgambigii dhicisoobay inta ay arrimuhu socdeen Fidan wuxuu si toos ah ula xiriirayay Erdogan iyo ra'iisul wasaarihiisii Bin Ali Yildirim isagoo sidoo kale hayay qad isgaarsiineed oo degdeg ah oo uu kula xiriiro hoggaanka ciidanka ee daacadda u ahaa dawladda warbixino Turki ah ayaa sheegaya inuu ahaa isku xiraha u dhaxeeyay hoggaanka siyaasadeed iyo kan military wuxuu kala isku dabiraday howlgalka u dhaxeeya sirdoonka booliiska gaarka ah iyo cutubyada ciidanka gaarka ah ee daacadda u ahaa dawladda isagoo kormeeray howlgaladooda lagu sugayay xarumo muhiim ah sida baarlamaanka xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo qasriga madaxtooyada talaabooyinkaas ayaa ka hortagay in afgambiyeyaashu si buuxda ula wareegaan caasimadda sidoo kale Fidan wuxuu amray cutubyada amniga internetka ee sirdoonka inay gooyaan kanaladii isgaarsiineed ee afgambiyeyaashu adeegsanayeen taas oo si tartiib ah u cuuriyaamisay isku xirnaantooda ila Turki ah ayaa tilmaamay in xogtii sirdoon ee hore loo helay ay sababtay in afgambiga la ogaado ka hor waqtigii ay qorsheynayeen curiyaashiisa kuwaas oo damacsanaa inay dhaqaaqaan saacadaha hore ee subaxnimada 16 Luulyo 2016 balse lagu qasbay inay bilaabaan fiidkii hore ee 15 Luulyo kadib markii ay dareemeen in laga war helay isku dhaxyacaas ayaa door weyn ka qaatay fashilinta qorshahooda si kastaba ha ahaatee mucaaradka gudaha iyo qaar ka mid ah falanqeeyayaasha reer galbeedka ayaa dhaliil ugu jeediyay Fidan iyaga oo ku eedeeyay inuusan si degdeg ah u wargelin Erdogan marka ay soo baxeen calaamadaha hore ee inqilaabka waxay ku doodeen in dib u dhacaasi halis gelin karay nolosha madaxweynaha dawladda Turkiga ayaa difaacday Fidan iyada oo xaqiijisay inuu ahaa tiir muhiim u ah fashilinta afgambiga natiijadii kama dambaysta ahayd Hakan Fidan waxa uu ka soo baxay isku dayga afgambiga isagoo ka awood iyo kalsooni badan sidii hore Erdogan wuxuu u arkay ninka kalsoonida koobaad leh iyo gacantiisa amni ee muujisay daacadnimo iyo karti ay ku ilaaliso dawladnimada xilli aad halis u ah tan iyo markaas awoodiisa iyo saameyntiisa nidaamka Turkiga way sii kordheen cadawga koobaad ee gobolka oo ah Israel waligeed ma qarin taxadarkeeda ku aadan Fidan siyaasiyiin badan oo Israa'iiliyiin ah ayaa u arka cadow si cad uga soo horjeeda danahooda tan iyo dhacdadii markabka Mavi Marmara ee 2010 magaciisu waxa uu si joogto ah uga soo muuqday xiisadaha amni ee u dhaxeeya Ankara iyo Tel Aviv wargeysada qaar ayaa xusay inuu gudbiyay xog xasaasi ah oo gaartay ilaalada kacaanka Iran arrintaas oo walaac gelisay hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad xiriirkiisa Iran mar walba waxa uu u muuqday mid iskhilaafsan mararka qaarkood wuxuu u muuqday dhexdhexaadiye iyo saaxiib gaar ahaan marka uu kala macaamilayay ilaalada kacaanka faylal amni oo xasaasi ah marar kalena waxa uu ahaa loolame toos ah gaar ahaan jiidaha dagaalka Suuriya gudaha Turkiga Fidan kama uusan badbaadin muran sanadkii 2012 xeer dhalinta Istanbul ayaa isku dayday inay u yeerto si wax looga weydiiyo ku xadgudub awoodo balse waxa la ansixiyay sharci ilaalinaya hogaamiyayaasha sirdoonka kana reebaya dacwadaha haddii aan ogolaansho maxkamadeed loo haysan xiisadaas ayaa ku khasabtay Erdogan inuu si cad u difaaco isaga oo ku tilmaamay sirhayihiisa taas oo sii xoojisay sawirkiisa ahaa ninka ugu dhow madaxweynaha markii dambe in lagu tilmaamo wasiirka arrimaha dibadda ee dahsoon kuma filnaanin Erdogan wuxuu kalsoonidiisa u bedelay mid rasmi ah isaga oo u magacaabay wasiirka arrimaha dibadda bishii June 2023 kadib markii uu ku guuleystay mar kale madaxtinimada magacaabistaas ma ahayn oo kaliya abaalmarin daacadnimo balse waxa ay ahayd fariin cad oo muujinaysa in Turkiga uu doonayo diblomaasiyad nooc cusub ah waa diblomaasiyad uu hogaaminayo nin sirdoon hore u soo maray fahamsan qoto dheeraanta faylasha isla markaana leh shabakad xiriir qarsoon oo xoogan maanta Hakan Fidan waxa loo arkaa mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu saameynta badan bariga dhexe cadowgiisu waxay u arkaan khatar ku gudban xasiloonida gobolka maadaama uu isku daro diblomaasiyadda iyo howlgallada qarsoon halka taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee AKPAT ay u arkaan maskax gaar ah oo kulansatay aqoon akadeemiyadeed khibrad howlgal iyo shabakad siyaasadeed Ankara gudaheeda wuxuu wali ka yahay hooska dhabta ah ee Erdogan gacanta fulisa faylasha ugu halista badan uguna xasaasisan isla markaana maanta matasha wajiga Turkiga ee dunida iyo jihada mustaqbalkiisa guud ahaan warbixinteennii aan ku eegaynay qofka uu yahay Hakan Fidan iyo awoodihiisa la yaabka leh intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa inta aanu dib u kulmayno waa Abubakar Maxamed oo idin leh nabad iyo warsan